sidaad idaacadaha iyagii horeba ku maqasheen Soomaaliya iyo Somaliland ayaa shalay ta kala saxiixday heshiis ka kooban 6 qodob markii wadahadalada Djibouti ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo. haddaba madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo VOAda waraysi gaar ah siiyay ayaa sheegay in Puntland ay diidan tahay qaar ka mid ah qodobadii ay labada dhinac ku heshiiyeen. haddaba goor dhaweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweyne Gaas waxaana ugu horreynta weydiiyey bal siduu u arko guud ahaan heshiiskaasi. dabcan anigu waxaan aragnay waxa weeye in heshiiska 6 qodob ka soo baxday hoos ahaana waxa lagu wada hadlay iyo detailska kulli anigu hadda kama warqabo saa anigu shalay sheegayna dawlad hadal dad Soomaaliyeed wada hadlaya waa soo dhaweynaynaa dowladda Puntland Soomaaliya inay heshiiso oo nabad ahaato oo dowladnimadii Soomaaliya iyo qarannimadeedii dib u soo laabato oo Soomaali mid ah oo la helo waa soo dhaweynaynaa haddii nuxurka wada hadalku uu ka yahay ujeedadu ay tahay marka qodobada baan arkayaa beesha ku qoran marka taa waxa iga weydiiso waa ka jawaabaya laakiin waan gartay madaxweyne markaad eegtid qodobada ka soo baxay intooda badani ma aha kuwo cusub waa kuwo wada hadaladii horeba badankooda lagu xusay inkastoo dhinaca hawada marka la eego labada dhinac ay dhowr jeer qodob noocaas isla saxeexeen maxaad u malaynaysaa qodobkaasi inuu mar walba u soo noqnoqdo qodobaduna aanay weli alaan si weyn isu bedelin horta qodobkaas annaga Puntland haddaan nahay dacwaan ka qabnaa runtii sababtu waxa weeye barnaamijkan hawada aniga ayaa bilaabay markaan ahaa wasiirka qorsheynta 2010 bilowga 2011 bishii May ayaa wasiiradu isugu tageen anoo dowladda federaalka matalaya Nairobi heshiis waxaa saddex geesooda oo ah dowladda TFG-da ku meel gaarka ahayd iyo dowladda Puntland iyo dowladda Somaliland waxaanu ku heshiinay in la sameeyo steering committee muddo barnaamijkaas u shaqeynayay goor dambe ayaad moodaa in loo wareejiyay Soomaaliya iyo Somaliland marka arinta iyada ah runtii annaga waxay nagu haysaa concern baan ka qabnaa qaar hadda looga wada hadli karo hawada Soomaaliya yaa waxa leeyahay lagu wareejiyay Somaliland anigu ma garanayo taa hadday tahay dee waa ila muuqataa fikir khaldan oo aan shaqeynaynin waxa kaliya lagu heshin karaa waxa weeye de in hawada Soomaaliya la soo raro Soomaaliyana loo soo raro Soomaaliyana waxa weeye waxaan u mareynayaa technical hadii laga hadlayo waxay leedahay wax la yiraahdo hal FIR Flight Information Region kaasina waa Muqdisho weeye caasimadda Soomaaliya weeye marka hadii la leeyahay dikiilada loo wareejinayaa Hargeysa haddana waxaan oranaynaa ma Hargeysa loo wareejinayaa hadalkan saddex geesood buu ahaa marka goor ka baxday Puntland oo Soomaaliya iyo Somaliland lagu soo kooday runtii anigu ma garanayo laakiin waa arrin runtii anaga far loo taagan weeye aanu waqtigeeda kala hadli doono dowladda federaalka waan gartay marka haddii la geeyo Muqdisho iyo haddii la geeyo Hargeysa Puntland sidee ugu kala duwan tahay waxaad sheegteen haddii Hargeysa la geeyo inaydan raalli ka ahayn waxaan leeyahay sidii waagi hore ahaan jirtay Soomaaliya one civil aviation bay lahaan jirtay hal FIR bay lahaan jirtay haddii xamar laga rabayo degarow hala keeno waan gartay dhinaca kale haddaynu eegno waxaad moodaa dadka badankooda siyaasadda Soomaaliya rogroga waxay sheegayaan inaan weli marxalad guud iyo qodobo gogol xaara aan weli laga gudbin muddada ay wada hadalladu socdeen maxaad u malaynaysaa inay hakinayaan oo loogu aan ila hadda loo taaban arrimaha muhiimka ah wallahi meesha waxa ku qoran sida ii muuqata in la leeyahay arrimaha hadda masiiriga ah ha lagu dhiirado oo ha laga wada hadlo laakiin su-aasha waxa weeye arrimaha masiiriga ah oo de Soomaaliya ku saabsan masiirkeeda waxa weeye de cid gaar ah oo de xil gaari ka saaran yahay oo yani wax ku koobnaan doonto ma noqonayso berrito ama bisha dambe ka wada hadli karaan oo keli ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane Axmed Maxamed Silaanyo arrimaha masiiriga ah arrin Soomaaliya dhan khuseeyo weeye Soomaaliya dhan baa looga baahan yahay inay ka wada hadlaan oo arrimaha go'aanka masiiriga ay wada gaaraan marka cid gaar ah iyadu arrintaasi u marorsan karto oo ku takrifali kartaana runtii aniga ima muuqato marka waxa hadii yahay wax masiirka Soomaaliya taabanaya hadda mesela markii anaga Puntland lahaan laga hadlaayo hadii waxyaabaha dadka Somaliland iyo dowladda federaalka ka wada hadlayaan ay ka matahay Sool Sanaag iyo Cayn
waxa weeye puntland bay taabanaysaa, xuduudaheedii bay taabanaysaa, masiirkeedii bay taabanaysaa iyo jiritaankeedii. marka taasina maaha mid keligood ay go-aan ka gaari karaan madaxweyne silaanyi iyo xasan sheekh. marka waxaa leeyahay arrimaha masiiriga halaga hadlo, laakiin hana lagu dhiirado, laakiin waa inay ahaataa wax soomaaliya oo dhani laga talagelinaya, aysan ku koobnayn laba shaksi. laakiin soomaaliya haatan waxay leedahay dawlad dhexe oo federaala oo madax banaan oo caalamkuna aqoonsan yahay. marka dawladdu miyaanay wadanka mas-uul ka ahayn oo aanay iyadu ka hadli karin? ma waxay inay dadka gobolada jooga o dhan soo kaxaysataa ma khasaba? maya walaashay, dastuurkeena dawladda federaalka ay ku dhisan tahay ayay ku qoran tahay. waxaan umalaynayaa inuu yahay articleka 153 waan umalaynaya, ayaa waxaa ku qoran in arrimaha masiiriga ee taabanaya masiirka dowlad goboleedyada in ay tahay waajib inay ka qayb galaan. dastuurkaana saa qoraya, maaha waxaan ugu cabdiweli aan leenahay. marka maadaama dastuurkaas aan ku wada shaqaynayno, kan soomaalida isu hayo dee documentiga ay ku wada shaqaynayaan ay tahay de isaga in la raaco ayaa muhiima. dawladda iyo madaxweyne xasan sheekhna isagaasi in ay ku shaqeeyaan, ixtiraamaanna waxa ku qoran. saas daraadeed ayay tahay marka wixii masiirkayaga anaga taabanaya puntland ahaan masiirkayaga waxaa laga hadlay day tahay masiir soomaaliyeed taabanaya puntland xaq ba uleeda inay ka qayb gasho. laakiin madaxweyne markaad sidaa u hadlaysa ma moodaa puntland inaanay kalsooni badan ku qabin dawladda federaalka oo ay doonaysa mar walba inay iyaguna qayb ka noqdaan go-aamada la gaadhayo idinka oo kamida dawladdii federaalka ahayd? dabcan walaal, waxyaabaha dawladda puntland saan kuu sheegay taabanaya masiirkeeda iyo jiritaankeeda. puntland dawlad baa ka jirta, dawladdaasina dabcan dawladda federaalka soomaaliyeed dawladda puntland ee soomaaliya la yidhaahdaa. laakiin haddii ay tahay dee wax khuseynaya ayada yani xuduudaheeda iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda, dabcan maxaa keenaya in somaliland lagala hadlo masiir waxa taabanaya jiritaanka puntland iyo midnimadeeda iyo soomaalinimada laftigeedaba? maxaa diidaya marka in aanu ka mid noqono, maadaama waxa laga hadlaya ay tahay masiirka soomaaliyeedba? masiirka soomaaliyeedna cid gaar ah ayaa mas-uul ka ah oo ka hadlaysa. soo anagu shacabka iyaga iyo dadka iyaga ma matalo oo iyagu nagula xisaabtamayaan berrito waxa kasoo baxa wadahadalada noocaas. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo goor dhaweyta khadka telefoonka iigu waramay. dhinaca kalena xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskii dalka jabuuti ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan. waxaa warbixintan magaalada hargeysa haddaba nooga soo diray oo arrinta ku eegaya wariyahayaga halkaasi ku sugan barkhad maxamuud kaariye. gudoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee somalilan ee cudiya wadani ayaa cabiray aragtida ay ka qabaan heshiis 6 qodob ka kooban oo magaalada jabuuti ay ku kala saxiixdeen madaxweynayaasha somalilan iyo soomaaliya. gudoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe ayaa VOA u sheegay in heshiiskani ay soo dhaweynayaan xisbi ahaan. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa inay dowladda jabuuti igad ka mid ah jaarkanahay inay arrinteedu gacan ku yeelato. taladaasna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. qodobada ka soo baxayn haddana iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. waa guul labada dhinac u timid. yani waxa weeye arrinta Soomaaliya markay fiicnaataba Soomaalidu waxay u taraysaa. waxaan jeclahay insha Allah taala inay ku dhamaan doonto ay ku qanci doonaan markaasay madaxda Soomaaliya dawlad nabada oo Soomaaliland oo walaal ah oo gacan isa siiyaan Jabuuti maanta ugu aayeen ayana noogu aayi doonaan aan jeclahay. injineer faysal cali waraabe oo hore xubin uga ahaa gudida wadahadallada uga qayb galaya Somaliland balse aan kulankani ku helin wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne Siilaanyo ayaa cabiray dareenkiisa ku aadan arrintaasi. arrintaasi waa arrin anaga noo internal oo debate noo socda weeye. waana qurux badan tahay in waxaan magaranaysaa wax la wada og yahay. dawladana waa u fiican tahay de markuu mucaaradku meesha ku jirin hadday xitaa wax wanaagsan keenaan way duwi karaan. ma necessary in la israaco laakiin talada la tegayo in la wada yeesho ayaa muhiima.
maraanu faysal weydiinay waxaa kulanka labada madaxweyne ku dhex maray jabuuti uu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhex mari jiray somalilan iyo soomaaliya ee ka dhacay dalalka turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa waxa uu ku jawaabay talabada waxaan aad iyo aad ugu farxana waxa weeye arrintu inay kiis afrika weeye kiis maaha yurub maaha qadiyad maaha UN maaha waa qadiyad afrika ku abtirsata weliba igaad ku abtirsata inta waxa ka sii fiican dee maanta madaxweynaha jabuuti oo nin soomaaliya oo ninka qori maanta soomaaliya adduunka la ictiraafsan yahay oo dee xogogaada inuu isla markhaati ka noqdo oo isku soo jiido oo wixii lagu heshiiyey uu dabagalo iyaduna aad u fiicantay geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isna VOA la hadlay ayaa saluug ka muujiyay qodobada lagu heshiiyey Somaliland wada hadallada in Soomaaliya la hadlo hore waa arrin la isku raacay bahay hase yeeshee marka arrintu ay arrin masiir taagan tahay oo mustaqbalka Somaliland laga wada hadlayo marka horena waxa ahayd in laga talageliyo safarka iyo hawshiisa iyo wax laga wada hadlayo axsaabta mucaaradka iyo golayaasha qarankaba imakana waxay u baahan tahay xukuumaddu inay dadka warbixin waafi ah ay siiso waxa kamid ah qodobo leeyahay in lagu dhiirado arrimaha masiiriga marka ay baahan tahay tafsiirinta ka badan xukuumaddu ay dadka ka siiso waxa kamid ah qodobkii hawada oo dadka ka warqabno United Nations-ku Soomaaliya gacanta ka geliyay hadda leeyahay laga wada hadlaya marka anigu hadda meesha yaalo oo laga wada hadlayo oo qabiya ama arko maadaama United Nations gacanta ka geliyay marka waxay u baahan tahay xukuumaddu inay shacbiga iyo axsaabta mucaaradka iyo golayaashaba warbixin waafiyaysiiso markay timaado insha Allah gudoomiye cabdiraxmaan ciro waxa uu sheegay inaanay wax dhib u arkin in xisbiyada mucaaradka laga reebo wafdiga madaxweynaha Siinayo hogaaminayo ee ka qayb galiyay wada hadallada balse taa beddelkeeda ay tahay in wada tashi lagala yeesho xisbiyada mucaaradka ka hor inta aan la tegin wada hadallada noocan ah isla markaana warbixin rasmi ah laga siiyo marka wafdigu ka soo laabto kulamada ay la geliyo Soomaaliya wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay hakad ku jiray waxaana qodobadii shalay lagu heshiiyey kamid ahaa in aanay daba furnaanin oo muddo cayiman loo qabto waxaana kulanka kan ku xiga la cayimay inuu ka qabsamo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 26 ilaa 27 February ee sanadka dambe 2015 Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa